The president of Somalia controls nothing more than Villa Somalia. He does not control a country. He does not control Mogadishu. He controls absolutely nothing. madaxweynaha Soomaaliya ma maamulo kaliya waxaan ahayn Villa Somalia ama madaxtooyada Soomaaliya ma maamulo wadanka xitaa ma maamulo Muqdisho run ahaantii tan waxay ku tusaysaa inaanay haba yaraataanay gacanta ugu jirin wax uu maamulaa. But Somaliland is that beacon that can shine not just for Somalis but for all of the Horn of Africa. balse Somaliland waa ka duwan tahay waa iftiin ka dhex muuqda kaliya aan ka dhex muuqan Soomaaliya ee ka dhex muuqda Afrika oo dhan. tan waxa xildhibaan Gavin Williamson oo kamid ah xildhibaanada aqalka dalka Ingiriiska isla markaana oo leeyay qadiyada Somaliland in Somaliland aqoonsi buuxa ka hesho beesha caalamka iyo dalkiisa Ingiriiska. xildhibaan Gavin Williamson oo ka hadlayay xafladii 16 Juun ee ka dhacday dalka Ingiriiska taasoo lagu xusiyay markii dawladda Somaliland ka qaadatay xornimadeeda waddanka Ingiriiska 16 Juun 1960 waxa uu ku jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa wixii soo diyaariyeen isaga iyo saaxiibadiisa kale ee baarlamaanka dalkaasi Ingiriiska taasoo doonayeen lagu horgeeyo dawladda dalka Ingiriiska ee baarlamaanka dalkaasi taasoo ka sheekeynaysa Somaliland iyo aqoonsiga la doonayo inuu siiyo Somaliland dalka Ingiriisku. isagoo soo kala Gavin Williamson uu sheegay in baarlamaanka waqti xaadirkan jooga ay tahay meesha Somaliland 65 sano ka qaadatay xornimada maalinkan oo kale 26 Juun. isagoo inta raacay midowga Somaliland la midowday koonfurta Soomaaliya in Somaliland ka dhaxashay burbur hadimo iyo dhibaatooyin taasina ay keentay in Somaliland mar kale madax banaanideeda ee Soomaaliya kula midowday kala soo noqoto 1998 May. isagoo Gavin Williamson inta raacay kadib markii Somaliland madax banaanida kala soo noqotay koonfurta Soomaaliya ilaa maanta oo la joogo Somaliland ay muujinayso dimuqraadiyad amni kala dambeyn deganaan iyo doorashooyin xor oo iskeedu qabsatay isla markaana waqti xaadirkan ay xaq u leedahay in dhammaan beesha caalamku ay aqoonsi siiso Somaliland. isagoo inta raacay in Somaliland ay ka baran karaan dalalka kale ee Afrika horumarka wanaaga iyo soo kale si ay u qabsadaan doorashooyinka xulka ay ka dhaca gudaha Somaliland. isagoo dhanka kale uu Gavin Williamson uu soo jeediyay eedeyn ballaaran dawladda Soomaaliya ee waqti xaadirkan uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. isagoo Gavin Williamson uu ku eedeeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaanu haba yaraatay waqti xaadirkan si buuxda aan u maamulin gudaha Soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. isagoo ku eedeeyay inuu kaliya maamulkiisu ku yahay Villa Somalia iyo aqalka madaxtooyada. isagoo Gavin Williamson inta raacay in dawladda Soomaaliya habeen iyo maalin ka howlantahay sidii ugu hortagi lahayd aqoonsiga la filayo Somaliland inay siiso beesha caalamka. isagoo sheegay report-kan ay diyaarinayaan isaga iyo saaxiibadiisa kale ka socda baarlamaanka dalka Ingiriiska ay ka hortagi doonaan caqabad kasta oo ku iman karta aqoonsiga la filayo Somaliland inay siiyaan beesha caalamka. isagoo sheegay inuu talaabo kasta u qaadi doono si Somaliland loo aqoonsan lahaa isla markaana ay uga mid noqon lahayd dal ka mid ah dalalka caalamka. ugu dambeynna Gavin Williamson ayaa fariin u diray dhammaan shacabweynaha Somaliland isagoo uu sheegay inay ku faanaan ku faraadeegaan isla markaana ay ilaashadaan nabadda dimuqraadiyadda iyo kala dambeynta ka jirta gudaha Somaliland isla markaana beesha caalamka ugu baaqay inay soo eegaan Somaliland isla markaana ay siiyaan aqoonsi dhab ah oo ay kaga mid noqoto wadamada caalamka ee la aqoonsan yahay. Maxamed Nasri, Somali TV, dalka Turkiga.